afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Deyr oo maanta jihaad ku qabtay magaalada Gabiley xarunta gobolka Gabiley ayaa ka warbixiyay safarka madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanya ku joogo dalka Imaaraadka Carabta sidoo kalena wuxuu afhayeenka madaxtooyada Soomaaliland Xuseen Aadan Ciga Deyr waxba kama jira ku tilmaamay hadaladii muddooyinkii ugu dambeeyay baraha bulshada lagu faafinayay ee sheegayeen xaaladda caafimaadka madaxweynaha qaranka Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo halis ku jirto isagoo arrimahaasi ka hadlayana waxa hadaladiisi xaafadda jecel maanta inaan warbixin yar oo kooban ka siiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo muddo 2 toddobaad ku dhow ayuu booqasho ku joogaa dalka Imaaraadka Carabta sidaan hore u sheegay booqashadaas waa booqasho shakhsi ah oo gaar ah sida madaxweynayaasha kale adduunka ay fasax ugu baxaan ayuu madaxweynuhu fasax u baxay haddana howlaha iyo maslaxadaha qarankeenu leeyahay meel kasta iyo goob kasta madaxweynuhu ku sugan yahay mas'uuliyadda historia ayaa waxay faraysaa inuu ka howlgalo wasiiro dhowra oo qaarna cimrada ka yimaadeen qaarna madaxweynaha la socdeen ayuu madaxweynuhu kulana la yeeshay dacaayadaha raqiiska ah iyo propagandada ah in shirki golaha wasiirada loo bedelay Imaaraadka waxaan leeyahay wax kama jiraan sidoo kale waxa jirta warar badan oo aad moodo dadka qaarkood inay habaarba uga jeedaan oo ay leeyihiin madaxweynaha xaaladiisu waa halis dhakhtar buu ku jiraa qalliin baa lagu sameeyay loo soo duceeyo waxa waxaan leeyahay madaxweynuhu caafimaad qaba alxamdulillah buu taagan yahay waa madaxweynaheeni waynu u ducaynaynaa habaarna inaga mudma dadka mucaaridka ah ee doonaya inay caafimaadka madaxweynaha campaign ka dhigtaan caafimaadka madaxweynuhu campaign ma noqon karo madaxweynuhu waa madaxweynuhu wuxuu yahay muxaafid iyo mucaaridba waa madaxweynihii qaranka waa hogaamiyihii qaranka cudurka iyo caafimaadkana ilaahay baa habeeya laakiinse halkan waxaan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland gudaha iyo dibaddaba uga sheegayaa anoo afkii madaxweynaha iyo madaxtooyadaba ku hadlaya madaxweynuhu caafimaad qabo wax qalliin aan u gelin xaalad caafimaad oo magaranaysa uu ku sugan yahay oo xunna aanay jirin waxaasina waa warar propaganda iyo warar dhiila oo ummadda la doonayo in lagu khalkhal geliyo in ummadda Soomaaliland lagu kala qaybiyo waxa muhiim ah in xisbiyada tartanka ka dhaxeeya xisbigii tartanka ka doonaya inuu galo inuu caafimaadka madaxweynaha ka dhiganin ajendaa koowaad laakiinse uu soo bandhigo manifesto iyo waxqabad uu ku bedeli karo xisbiga hadda talada haya laakiinse caafimaadka madaxweynuhu ma aha ajenda ummadda ku soo jeedi kara mar labaad waxaan ku celinayaa oo warbaahinta u marinayaa dadka warxuma tashiilka dadka dhiilada ka shaqeeya dadka dhaliila had iyo jeer wax kasta oo wanaagsan ummadda jamhuuriyadda Soomaaliland u qabsoma madaxweynuhu caafimaad qaba dhawaana dalku uu ku soo laaban doona warkaasina waa war madaxweynuhu wuxuu leeyahay dad u gaara oo xaaladiisa ka warhaya marwada koowaad xaaskiisa kamida caruurtiisa kamida wasiirka madaxtooyada kamida wasiirka waxa kamida maaliyadda kamida ambassadorka inoo fadhiyay Imaaraadka kamida madaxweynuhu diyaaradda Hargeysa markuu ka raacay Faadumo Saciid waxay sii fadhiday diyaaradda oo iyadna socdaal gaar ah ku socday halka way kula kulantay laakiinse waxaan beeninayaa in Faadumo Saciid ay madaxweynaha aragtay oo ay u tagtay وسريرة الإسبيتال كأي شيء جالس يكون كلام طيب وركاسي وحبة كم يجران وبروباغاندا دعاء مدحوينه ويفرط إنه دعيون الحل كيس كو أسطورة إنه إلى هاي ومدى الحل خاي واجباتك أو هايو إنه إلى هاي كو أسطورة حدي حنون كل عاد إنه قلنا لسمي أنا إن لو دعيو لكن سوى واحد فاضم مع مدحوينه ويقول دعيني سمعان كرن مدحوينه مدو دو هدي له هاي راحو مدو دور عشاء جده دلكو كسول لابندونا وحنت ضباط كبدنا هدي له هاي راحو تاسي أنا كو حقيقة يا فصحي وحوي مركي هو رد فصح مدلل مو هين لكن سوى حوي فصح جابن ومدحوينه وجارة أيود دلك إمارات وكتجي مقالة أبو دبي يمكن هدي له دوام وطن كوسو جدنا نقدونا كوسو جدنا نقدونا مدحوينه مركو بوقشوا جارة كتجو أما من العسومة هالنقطة أما من فصح هالنقطة أما سفر وجارة هالنقطة ودل كتجو وحي دناها قارن كيسو أديجي ولا كله مر والبو كهول قلا هالنقطة دلك إمارات كعرفت ودنا بدنا نقدر حيان وما بقى أو دلك إمارات ولا كلمه تذكرون مع القبائل أو دلك إمارات كتجوجا مدحوينه وحوي هذا يشير وحوي دربيه ديار نوي هاي إن ضنته يمسل حد قرب وحكسو يكو أسلحة يسو وكهول قلا قولي علي إبراهيم الكعسة ورباهين تعالمي SBC مقالة جيبلي حارة قبل كجيبلي